waxbartaan 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 barwaaqo gaarne waxbartaan 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 barwaaqo gaarne. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalka Ustaad Saciid Training. Waxaynu guda geli doonaa qaybtii 19aad ee casharadeenna inoo soo socday. Sida aad shaashada ku aragtaan waxaynu ku baran doonaa 3 qaybood oo kala ah. Qaybta ugu horeysa waxay noqonaysaa sawirada teesaraha ah. Qaybta ku xigtana waxa weeye sawirka aad u jeedaan iyo sawirada hore waa isku mid. Waxaynu ku furi doonaa iftiin ama waxaan siyaadinaynaa kalarka magaranaysaa. Sidoo kale qaybtaas saddexaad waxay noqonaysaa black and white. Marka waxaynu ku hormari doonaa labadan qaybood. Qaybta teesaraha way noo dambeyn doontaa. Marka si aan iftiinka iyo qaabka loo siyaadiyay kalarka aad u aragtaan, image baa tegaysaa, kadib adjustment baa dooranaysaa. inahan oo dhan waxaa ku jira qaybo kala gedisan oo ah haddaa har la rabtid, haddaa magaranaysaa kalarka rabtina balance garay. Sidoo kale black and white waa kana, brightness markaa ka dhigaysid oo iftiin ku furay. Sidoo kale hadda sawirku waa ujeedaan, iftiin baynu ku furaynaa. waa aragtaa uu iftiinku ziyaadayaa marka dambaysa, waa ujeedaan ilaa meesha ugu dambeysa geyn ka dhaca. Sidoo kale qaybtan waxa weeye qurxin weeye, ayadana sawirka lagu qurxiyaa kalarkiisa, waa ujeedaan. Marka waxa weeye qaybta iftiinka waa taas, okay baa leedahay. Sidoo kale markaa aragtid black and white inaad ka dhigtid, isla meesha baa tegaysaa, black and white baa dooranaysaa. waa aragtaa sawirkii black and white buu isu bedelay. Marka sidoo kale haddaa black and white ka rabtid inaad u daysatid, okay baa sii leedahay. Marka qaybtaas dib baan uga laabanaynaa, control z baan leenahay. qaybta black and white ka iyo kalarka lagu furaya intaasaan uga gudbaynaa. waxaan guda geli doonaa teesaraha iyo qaabkii aynu u diyaarin lahayn. Marka sawirka teesaraha crop baynu soo furanaynaa. halkaas saro aad u jeedid size-ka waxaan gashanaynaa sawirka teesaraha uu leeyahay 1.5 inches iyo 2 muxuu ahaa balac iyo dherer bay kala yihiin. markaa gashatid hadda waa diyaarsan yahay, okay baa leedahay. okay markaa dhahdid waxaa samaynaysaa, waxaad tegaysaa image baa tegaysaa, waxaa kasii tegaysaa image size. isla size-kii baa rabnaa halkan inaan gelino 1.5. halbeega adeegsanaysa waa inches. halkana 2 buu ku noqonayaa dhererka. halkan resolution waxaa ka dhiganaysaa 200. kadib automatic halka waxaa isu gelinaya dimension-kii baa halka isu gelinaya 300 pixel and 400 pixel. marka waxaa laga yaabaa software-ka isticmaalaysa saa inuu kugu soo saarin. marka hadduusa qaabka kugu soo saarin oo qaybtan qayb la mid ah oo halka kugu soo dhigo, waa inaad dimension-ka 300 400 ka dhigtaa. okay baan leenahay. kadib waxa weeye xoogaa baan soo dhaweynaynaa, control plus baan qabanaynaa, ama zoom halkana waa isticmaali kartaa, zoomtana waa isticmaali kartaa. marka halkaa joogtid login baan ka saaraynaa, sorry, control z. double click baan leenahay, layer baan u sameynaa, layer 0. layer markaa samaysid edit baa tegaysaa, stroke baan u sameynaynaa. stroke marka aan u baahanahay waa 1 pixel, ka bedeli mayno, waa inoogu jiraa. marka kalarka caddaan baan ka dhiganaa. stroke waxaan rabnaa caddaan inaan ka dhigano. stroke haddaadan aqoonin waa kalarka, waa waxa weeye wareegga ugu sarreeya. meesha doontid baa gelin karaa, laakiin waa arkaysaa halkan dhexda waa inuu magaranaysaa ku dooran tahay calaamadaas. marka waa
stroke waa wareegga yarka ma garanaysaa spaceka aa gelinaysid wey. marka intaa kadib control T baan leenahay, calaamad kadibna wax yar baa waxa way hoos soo dhigaysaa. xoogaa aniga waxbaa ka khaldankayga, laakiin waa inaa saa u saxdaa ma garanaysaa sayska halka waa inaa saa u saxdaa. kadib isla edit baa tegaysaa, waxaynu ku xaran doonaa bataniska, qaybta bataniska ku xaraynaa. marka haddaa aragtid magac baa u samaynaysaa, haddaa rabtidna bilaa magac baa ku xaraynaysaa. BSS baan ka dhiganaa ama size-na waa u raacinaynaa. oo ah passport size baan soo gaabinay. markaa xarayno waxaynu soo furanaynaa marka intaas sameyno waxaan soo furanaynaa layer bas, waxaan soo furanaynaa page cusub. page-ka aan soo furayno size-kaynu u baahannahay wuxuu noqonayaa size-kan balacu 1200 pixel wey. waxaan adeegsanayno inches waa ka dhigi karnaa 1200 iyo 800 oo dherer ah. resolution 200 baan u baahannahay. intaa kadib markaa kan soo furatay edit baa ku laabanaysaa, fill baa tegaysaa, halkan baa furaysaa. meesha aynu dhex gelinay waa kalaradii baynu soo dhex gashanay. marka right click baa leenahay saa u aragno shaygan magaciisa kan meesha dhiganay inuu yahay waa kaa BSS size, waa kii aynu meesha dhiganay baa ku jira. isagaynu marka soo dooranaynaa, tick baan saaraynaa, kadibna okay baan leenahay. saas baan sawirka ku diyaarin. sawirka teesaraha saas ku diyaarsan yahay. qaybta kale oo ma garanaysaa brightness-ka ahaydna waa soo aragteen. qaybtan halkaas inoo joogaysaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.